cilmi baaristan ayaa in mudahaba waxa ay ka socotay dalkan Yemen gaar ahaan magaalada Sanca oo ay markaasi sameynayeen dhaqaatiir Soomaali ah ayaa waxa ay gaartay halkii ugu sareysay uguna weyneyd marka loo eego daawooyinka cajiibka oo ay soo saareen kuwaasi oo markaasi lagula dagaalamayo laguna daweynayo cudurro halis ah oo caalamka u caalwaayay daaweyntooda daawooyinka uu dhakhtarkani Soomaaliyeed uu ilaa iyo haatan soo saaray ayaa waxaa ka mid ah daawooyinka cudurrada kansarka, AIDS-ka, sonkorta, cagaarshowga ama jaundice-ka ama waxa loo yaqaan hepatitis-ka iyo kuwa kale oo iyagu markaasi baabi'iyay dadweynaha caalamka. daawooyinkan ayaa waxaa lagu magacaabaa cajaa'ib waxaana daaha ka rogay Dr. Maxamed Cabdiraxmaan oo markaasi loo yaqaano Dr. Cajaa'ib. kadib ilaa 99kii ayaa waxaan bilaabay cilmi baaristan oo aan ku howlanaa 99kii iyo ilaa iyo hadda. marka ilaa hadda cilmi baaristan wixii natiijo oo ama guulo laga gaaray ayaa waxay tahay inaan daawooyin u soo saaro 90% cudurrada dunida. haddaba gadaal waxaan ka ikhtiraacay dhawaan muddo imika laga joogo 2 sano iyo 3 sano ku sii dhadhow meelaha daawadan chemicalka yani chemical marka leenahay waa chemical pharmacology ama daawooyinka chemicalka ka samaysan oo maadooyinka iskaga jiraan ay yihiin chemical. marka daawadan ayaa wax weyn ka bedeshay nidaamkii cilmi baarista waxaana siisay awood buuxda يعني إن علم بارستاني أي تهاي تهدد الدنيا ugu horumarsan dhamaan. Dr. Cajaa'ib ayaa waxa kale uu sheegay in laga gudbay oo sheeko hore ay noqotay xanuunada dadka caalamka daashaday sida AIDS-ka, kansarka, sonkorta, cagaarshowga ama jaundice-ka, tifowga iyo waliba xanuuna kale. bal waxaad iiga warantaa xanuunkan maxay tahay maarta kansarka oo dilooday caalamkan aan ku noolahay kana cabaatiyay ummad badan oo dunida ku nool marka kansarka sidee baad maxay tahay daawadan sidee bay ugu takhalusaysaa kansarka nooc doonaha ahado imaka kansarada daawadan oo kala lagu isticmaalay waxa kamid ah kan cuna waxa kamid ah kan ilma galeenka waxa kamid ah maxay ahayd kan oo iyaduna caloosh kansaradu waxa weeyaan nooc doonaba ahado daawadani waxay ku dilaysaa 3 xisho matalan dadkii markay ku yimaadaan oo daawadii aad siiso waxa weeyaan waxay dareemayaan 3 xisho xanuun maalinka afraadna waa fudayd macnaheedu halkaas ku dhintay laakiin dawadii waxa la siinayaa 40 xisho sidaas ayaana dadkii ay ku qaateen iyagu markay isbaadheen oo ay tageen dhakhtaradii xataa ay kalsooni iyagu ay rabaan saasay ku qaateen negative-koodii ay ku qaateen oo baadhitaankooda negative soo bax waxa weeyaan wax kansar la yiraahdo dunida waa laga gudbay dad badan oo imika Soomaaliyeedna way ku fiicnaadeen waan dadku way imanayaan way istaweynayaan danahooda qaadanayaan meesha doonay kala tagayaan dad aan ogeyno way jiraan daawadan AIDS-ka marka la siiyo waxa la siinayaa 8 saac hal mar daawadan shaqadeedu waa 8 saac ay jirka ku jiraysaa 8 saac marka la 3 xisho marka la siiyo min 8 saac hal mar la siiyo waxay noqonaysaa 9 goor 9 ka goor marka 3 xisho qofku wuxuu dareemayaa xanuun ayuu dareemayaa oo wuxuu dareemayaa kala sidii matag soo qabanayo oo kale qofku markuu AIDS leeyahay xanuun kastaaba habka loo dareemo 3 xisho hore way kala duwan tahay kadib maalin afraadka qofku wuxuu ka dareemayaa galbada garab ayuu culays ka dareemayaa waa qof kasto le AIDS markaynu ka hadlayno wax weeyaan AIDS marka leena waa cudurkii markaan HIV leenahayna waa fayraska jirka ku jiro wali heer cudur gaadhin ama qofku ha ogaado ama yuu ogaan marka qofku markuu fayraskani ku jiro ama AIDS ha noqdo ama yuu noqonin wuxuu ka dareemayaa maalinka afraad labada garab culays maalin afraadna fudeed buu noqonayaa marka macnaheedu wuu wada dhintay marka 40 cisho ayuu qofku dawa qaadanaya 40 cisho markuu joogo 20 cisho soo joogaya markaasuu tagayaa shaybaarka kadibna saasuu negative ka qaadanaya ilaa hadda tijaabada aan sameynay waxa weeyaan dadkii isticmaalay dawadan AIDS-ka lahaa way rumaysan waayeen runtii maalin afraadkii ma dareemaya xanuun macnaheedu dadka caafimaadka qaban ku jira sidoo kale waxaan guryahooda ku booqanay dad markaasi qabay xanuuno kala duwan oo markii dambe laga daweeyay oo ay ka mid yihiin dad markaasi qabay xanuunka dhaliyo viruska HIV AIDS cagaarshowga ama hepatitis-ka iyo waliba tifowga iyo xanuuno kale horta xanuunka si saa'id u yahay haddii si saa'id yahay daawadan aan bilaabay 3 beri aan daawada cunayay 3 beri markaan daawada cunayay maalinka afraad marka xanuun iyo maxaan dareemay xanuun
markii maalinkii shanaadna alxamdulilah waan fiicnaaday waayo haddii oo xanuunkii hore aan arkay inaan ka caafimaaday oon kasoo roonaanay sidii horeta niyaddii iga xumayd iyo dhibkii hore aan qabay waan ka fiicnaaday horta oo niyaddeedii saafiyey noqon maalinkii shanaadna caafimaad baan dareemay alxamdulilah hurdadii cuntadii aan cuni jirin adi korkii ololaayay wixii dhan waan ka fiicnaaday waan dhihi karaa dadkii dhahayay jiradanaad ruuxii ku dhacda wuu khalaas wuu dhimanayaa inuu hadda fayraskii dadka hayay inuu maanta dawadiisii la helay oo dawadiisii maanta diyaar ay tahay oo ruuxii ku dhacay uu ka dawoobayo daaqadaydiiskii ka baxa daawooyinka hore sidii dhakhtarku igu yiraahdo isticmaal baan isticmaal jiray haddana mar kasta meeshiisa buu kusoo noqon jiray mar 450 mar 350 mar 500 oo wax yar laabuu noqon jiray ama 480 oo kale haddana wuu igu soo noqday laakiin hadda alxamdulilah waan fiicanahay aad baan fiicanahay waxyaalihii i dhibi jiray oo dhan markaan cuno waxba kuma noqdo alxamdulilah xanuunkan igu dhacay muddo 7 sano ka hor aniga oo meel taama joogo meel maarta xeebta soo yimanta ka mid ah waxa igu beeray adigu waxa igu beertay baasha la yiraahdo kaneecada ayaan ka qaaday markaa muddo 7 sano ayaan la daala dhacay marba uu igu soo kacay markaan mar iska daweeyaba igu soo kacay markaa ka bacdi waxaan helay ninkan doctor Ajaayib ayaa dawadan siiyay muddo 7 bilood ka hor waan ku fiicnaaday oo aad iyo aad baan u ladnaaday oo waan fiicnaaday arrintan ayaa waxa ay noqonaysaa guushii ugu horeysay uguna baaxadda weyneyd ee dhanka dawooyinka oo markaasi ay gaaraan Soomaalida guud ahaan gaar ahaan kuwa ku dhaqan dalkan Yemen Maxamed Cali Juuxa telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Cadan dalka Yemen